markiiska isku daaweynta quraanka kariimka iyo sunnada nebiga ee Sheekh Maxamed Wali. markiiskani waxa uu guud ahaan bulshada ugu bushaareynaya ee degan Hargeysa iyo nawaaxigeeda inay dib habeyn ballaaran lagu sameeyay markiiska, iyadoo markiisku uu soo guuray xaafadda shacabka. waxa uu dhinaca koonfureed ka soo eegaya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, dhinaca galbeedna waxa uu ka xigaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa. sheekhu waxa uu aqoon u leeyahay oo si fudud kaaga daweynaya xanuunada ay keenaan isha, sixirka, durada iyo sidoo kale dhiigkarka, macaanka, kansarka iyo jilba xanuunka, faaliga iyo arrimaha qoyska sida guurka, xalinta khilaafaadka xasadku uu keeno. eegan u haynay waxa ka ahaa inaan si yar oo fudud sixirka uga furno, si yar oo fudud maaragtay haddii alla idmaayo durada dhibaatooyinka keenaan ay ka mid tahay faaliga, kansarka, cudurrada guud oo dhan. cuduraan waxaan keenin ma jirto, inta waan ku dabaybnay halkan. waxaana ka marqaatiyay nabada kamarad duubay Cumar iyo oo dad badan ka duubay oo Ilaahay gacmahayga shimbir ku siiyay. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu naga ilaaliyo shadaadiinta, hawshaana uu mar walba nagu sii guuleeyo. aniga maray xamara sheekhu xanuunay ilmaha xanuunsanaya waday quraan ugu aqriyay waa dhacday in badan bay xanuunsanaysaa in badan bay xanuunsan. wuxuu igu yiri ilmahan sixir baa haya, haddii sixir hayana maxay hayday halkaas wax kaga dhagan yihiin ama aqalkayga kuma tagi ama taage marka ma tagto insha Allah way caafaan biidillah way caafaan ma inantu way ma tagtay way caafimaatay way fiican. waxa ka soo daatay masaabiirtaas ka soo daatay halka waa laba. waxa ka soo dhacay kala 5 masfaar oo ka horeeyay 7 masfaar baa ka soo dhacay kuwaas saarka markii aan keenay ayaa halka ka soo dhacay sheekhoortiisa. markaskan Maxamed Wali alxamdulillah rabbil caalamiin gabar yar oo habarruhay baan keenay, xanuun baa ku dhacay waa la aamusiyay. marka maxay ahaydee markaanu geynay Ilaahay shimbir buu ka siiyay isaga inuu waaxideen. marka gabadh yareed iyadoo caafimaad qabta ayaan halka kala noqonay Ilaahay dartii. markiisku waxa uu shaqeeyaa 7 maalmood marka laga reebo maalinta Jimcaha, iyadoo 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo aad helayso. wixii faahfaahintaasi dheerna waxaad kala xidhiidhi kartaa taleefanada shaashada kaaga muuqda. hamogaanin markiiska isku daaweynta quraanka kariimka iyo sunnada nebiga ee Sheekh Maxamed Wali.